التمنت واحد يقول الخلقالة دي ما الخلقالة كلام يقول أن كلام صحيح متع على السوق اللي ما دامش معاه وحنا نقول لك درينا ومحمد سيان iyo wixii fikradiisa u shaqeynaya oo la qaba baaba'aas iyo dhibaatadaas dadka u gaarsiiyay inay sii dheeraato baan la dirinaynaa marka uu ilka ka baxo Soomaaliya oo dhan baan isku biiray waan isku imaanay waan tashanaynaa laakiin ma ogolin inaan wada hadallaan wada yeelano isaga iyo cid ka socota innaba inaan la yeelano horta ma war horaan goosanay taas mana ku tali jirno marka idinku haddii ninkii baxay oo uu socday idinkoo ka mid ah naga mid ah oo aan isku mid nahay in Soomaalinimo iskaga mid nahay oo mas-uuliyad Maxamed Siyaad diiday aan wadan baan wada hadlaynaa isku nahay markaas xabad joojin imaan kartaa annagoo xora oo dalkii xoreynay رجيمك محل سيادنا نقدر هي سكول ما كرنا وضح هذا الوقت مبدأ نقولنا معهم هذه يقولوا هي أول ترادس واحد بدال طلبنا وحمد دوننا هنا من فرقنا ولا معارف في هالجن كهوبس أنت كله حق أولى إن الصومالية كترس ولا ترس إن شيء سكوت ما أو أي كبر تشبع أيه أنا مبدأ كشتين وكاس waxaan kala qabnaa oo aan biyo horumarin inaanu hadii ay ku dhuntaan isma dawlad ku meel gaar markii maxaad si meesha ka soo ku meel gaar oo waa raba markuu tago ayaa go'aankaas loo egyahay xabaduna waa joogsanaysaa Maxamed Siyaad markuu meesha ka socdo oo dadka xabadda u soo ridaya aanu markaysa ama isdiibaan ama sidii kale oo magaranaysa aan ugu talina iyagu ay yiraahdaan maaragtay waa narakacadka markaas فملك كو وحدة سوما محمد سيد كو وحدة واحد من بدو الصومالية ما أعصرنا دباتو بيسنينا المدة الصومالية من كاس الله ما تجسنا شعب الصومال على الدر الرجل محمد كل قال له بدرين أمرنا كل قال له إن أنا نوقف المدة الصومالية وبقول لنا وننتهي عيان ماشي أسوقي بقول كيني ما نيكا كان دورة لما تصر نوفا دين معي وأفرت العيشان مع الموت لحدا مع الموت ولا لحدا مع الموت أو أيضا لا عيشان احتام قال لبكا علم هذا خير وحي معقول أما طلع وقاطنا نيكا كانوا سرا برايم منسترنا إساقا سومك عاود منستر الذي فيسنا إساقا waxay ku filan tahay saaka inuu tagu yeereeyada xabaddan baa taadiil rido inta soo milyan buu leeyahay ninka ridaya saadka warqabtaan daahir shire iyo ragle ayaa ridaya waa lama badfa oo la wareegteenmay war wixii salbiyaama salbaad baastada dictatura ragii xibinta wanaagsan ka qaatabaati wayni soo dhaxdigayna maxamed waxa weeyaan inta odayadu ay sheegeen مشان هرجن كان هرجن الشعب أيوة سيدا وفوق عينه حمر بوك كعين يدور ولا تبي معناها US هالنقطة أما الصومالي هالنقطة حمر أيوة مرتي هرجن لا توين نواقي صن مركا أضيال بقولها أي إسحاق دانشان يتطلعات أن كتر صن لدوينه شعب شان يلا بعتنا الدولة ودي قصول حلوه برلمان مجرين دولة مجرين وحي نقطة وحي وكالة وجددنا وحي أهيد بدبادين تك وحي بدبادين كوا وهو ريحك شرعي والله يقول وحي ليري هذه سجى سكتك ليري نيك الجوجة أما سيهين يقسم كل مياه ورسلنا كبرلمان كوية أنت لا يسوي من يسجى وحمام مقعد كذا دستور كي يوحى لهيك كل يبغى وحي جري جمهورية دي هراء وحي جمهورية دي صومالية تي وكعنكم مركو انقلابي وكذا هذا واحد يسوي جمهورية الديمقراطية الصومالية بهي واحد من ضمن جمهورية كره ولا ترسى ريبوبليكا واحد نقطة مدبا يدحليسا marka wuxuu ku yimi xukuumadda in la dhiso horta isaga hadda dhiso xukuumadii marka la dhiso isagana iska tago way isdaba yaalaan xabad joojin waxa go'aan buu ahaa laba ajandada noogu qornaa xabad joojin iyo isagoo taga saddexda qodob bay waayeen xukuumadda in la dhiso isaga uu tago markiiba
كحتو مدة يوحنا هنا ولي وهي معنا نصشري واتوكل وابو يروح عن كوريجي حلك عمر عتان كوريجي معنا اكسكيوتيف باور فول ايام السيواني والمفرق جميل ايوه بحي حكومته اي وطنيس oo abuurtay maanta marka ma aha ficil ahaan iyo fikrad ahaanna u muuqday oo aan goobso ka tegin inkastoon hadda iibanu kaa maqay meesha dagaalada ka sugan ururada mucaaradka iyo taageersan dagaalku wuxuu ka bilowday kacdoonka lagu afkaminayo lagula diraayo jilka waqooyina dadkii iyo hantidii waxaa la mariyay kaga sheekeynaa markaas haatana burburka halka ka dhacay waxay tahay waxa ujeedda iga socda ujeeddada ay leedahay waxaa weeye waa kacdoon lagu duminayo rajiimkaas dhibaatana mar haddii dagaala socdaan way dhacay caadi mixokeyo ayaa qaadanay nabadgelye la nabadgeliyo dadkaas iyo hantidooda waxay ka haray waxay ku salaysan tahay mabdaanaga waxayna ku imaan kartaa rajiimka maxamed saadoo meesha ka taga markaasna soomaali ay tashato maxamed saad afgamiyey iyo soomaali weyn ay tashato marka anagu lid kuma nihin keligana tashanayna oo wixii qabsanayna anagu kuma dhisna soomaali saddexdaas ururo mucaaradka soomaali oo dhan baa la waxaan qabnaa inaan waana karaaraynaa inaan horumar horta midaas rag miday ku yahay odayaala dadka taariikh ku leh waa si mabdeeda waa waxaa lagaamana horjooga ama aad tahay ninkaa horjooga mabdaeeda iyo taladeeda iyo dariiqay maraysa iyo go-aanadeeda inaad ka mid ahaatid kasoo jeesa haddaad u s c ba sheegay meel kale marka arrinta tan marka mabdii hadduu taasi waxaan isku hayna maxamed siyaada dowlad dhisay maxamed sidaneed dowlad noo dhismay saasaan qabnaa dowladda dadweynaha soomaaliyeed baa dhisanay dadweynaha soomaaliyeed ummadan soomaaliyed ayaheeda iyagu waxay ka dariyaan leh ayaa dowlad dhisanay dhegayso maxamed siyaad bare dowladdu noo dhisay annagu oo maaragtay rejiimkii oo joogto oo isagu ka tegay ya annagu markuu tago waxay noqotaba aan aragno ya laakiin dowlad baan dhisayna xabadiiba hadda joojiya xagga waxaas annagu ma ahan waa arrin aan horey go-aan uga gaarin berorta inaad na fahantaan xabad waxay joogsanaysaa waanu tashan doonaa soomaaliya dhan baanu iskugu yeeraynaa ururadii mucaaradka imaanahaya ya sidii waxaanu xallin lahayn baanu u fariisanaynaa waxaan isku diidi doonana ma jirto waayo haddii aanu isku mabdac noqonno oon isku meel wax ka wada wadno oo ay tahay maaragtay ummadda soomaaliyeed in la mideeyo ayaheedana maaragtay wixii ka dhumay sidii dib loo soo noolayn lahaa dhinac walba hadday tahay ya waxa weeye markaas in aanu marka taladeedii waqtiga ay yeelataa annagu man ogolin ma aanu ogolin aan xabad joojino maxamed siyaad baroo jooga labadaas hadalkiiga ku doona igalana maaragtay waayo kolley waanuna isnaqaanaa waanad ogtihin mabda'aas ogtihin taladu waxa weeye anagu waxaanu isku nahay urada mucaaradka far nin markuu hadlo meelka hadlo asaga ayaa u ah garanaysaa horta woja ama codkii asaga u dhibayay annagu waxaan idinkula talinayaa anigoo urada mucaaradka ah halkanka hubaysan ku hadlaya
anigoo ummadda Soomaaliyeed ee ridaysa Maxamed Siyaad Barre ee gacmoodana aniga halgamada riday ku hadlaya in aad ka tanaasushaan arrinta ah Maxamed Siyaad Barre oo jooga xabad la joojiyo arrinta Maxamed Siyaad Barre jooga wadada halala yeesho taas ma aaminsan mana yeeli karno raallina ku noqonaysan haddii ay nagu raacdaana Maxamed Siyaad Barre ha socdo haddaad nagu raacdaan ha socdo loomaba baahnaba waqtiba ma jiroba 7 casho iyo 15 casho 45 casho dastuurkaas iyo barnaamijkiisana umaba aaminsan waad ogtihiin halganka si uu ku hirgalo dabcan waxaa la xijinayaa waqooyi dad baa aniga dana joornalista iyo waxay yiraahdeen waqooyi waa isaaqa waa meesh waqooyi Soomaali shalay xornimada qaateen ya wax yimaadeen Soomaalidii South oo xornimada qaadanaysa maalintii qaateen ma afar maalintii ku afarayday jacayl u qabaan walaalahood iyo dalkooda inay madoobaan isku gudiyeen ay ku soo biireen isku madiyeen iyaga sharkaas weyn iska lahaa jawaabtii la siiyana jawaabtii la siiyana رجينا أنا أنت هذا الدولة رجينا بهذا الجاي أنت كمان شلوننا شوات السيمي دوينا هاس هل كافون استحيل من لكن حنا سيادة صوت سيادة اسكو دري حتى أنت كسر ذي تمام أنت يلا اسكو دومتين اسكو بوجي اسكو بعلاش ولا بوش حنا نقطون الصوم ديجي عندها ديجي مدرب يتني كده عندها مدة إلا قارتيا اسكو درا أنتاس أنا بقول لا درينا وأنا لا درينا وأنا لا درينا وش هنا واطن ما قرتين هالجماياشي محمد سياد صومالي متعربة كلها محمد سيادنا وحكت لي يا نقطة حتى الآن أصلا كتنا السلة حولها عن كلام شيء يسهل حبضت بان مسنين هذا وأنا قطع مسنين ما أنت يبري وانا تشرينا انا وصومالي ما تشرينا تاسين نكو عسميه ميدان كله هل كان كده ميدان يلي كانوا مع يلا احوان صوبسني صومالي اسكت صومالي وانا منطقه يا تلادان dad badan baa iskale ya ragini halka isku gutiga kaliya mare صح ya markaas taladii sabaan u fariisanayna oo danna ma qabneen waa ma aragtaane ya إذا كمان قبنا ودنس وده يقام بعنا هاي. السلام عليكم. السلام عليكم. الخاص. أيوة. نعم. خاص. خاص. عمر نوير صوت عود إماعي كنت وكاس أنا قلت سيدي إلهي أحد أنا نبدأ أن نقول اسمع يا جوابي أي أرمي أي وحسني بي جوابي قضياشي من الفرق أي waxaan ogaaday meesha inay tahay meeshii intii ciidamadu qabteen odayaasha laga soo waday inaynan ku imaanin maaragtay ikhtiyaarkooda mar haddii arrintaa dhacday guryahoodiina lagu celiyo si nabadgelyadana loogu geeyo weliba maadaama meesha la xoreeyey ay tahay dhulkoodaas haddii la isla garto nabadgelyadooda aanu ilaalino waa mahadsan
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله